brain power waxaa jira dabcan ilaahay subxaana watacaala awooduhu inagu manaysta maskaxda ka mid ah oo inaan awooddeeda soo koobi karaynin. Maskaxdaasi waa midda marka aan wax badan aan baranayno, aan akhriyayno, aan dhegaysanayno, oo rabno inaan aqoon yeelano, aan rabno inaan u adeegsano aqoonteena nafteena oo dhan markayna anfacaysa biidnillah akhriya adduunba. Practice-ka iyo waxyaabaha maskaxda laga sheega runtii maaha waxay soo koobi karana wuxuu ku soo koobi karana un maskaxda 10kii sano u dambeeyay inta adduunyadu ka ogaatay researchada sameeyaan haddii la barbar dhigo 10 sano ka horreeyay waxa ka badan 10kii sano u dambeeyay inta laga ogaaday 10kii sano u dambeeyay saadaraad waxaad ogtahay inaan la dhadhaweyn oo wax kastoo la isku dayo iyo si kastoo la isku dayo waxa laga ogaaday aad u yar tahay. Marka maanta ma baranayno isma weydiinayno awoodda maskaxda ay leedahay maxaa ka mid ah inaan ma baranayno waxa kaliya isweydiinanaa un waa maxay waxyaabaha ay tahay inaan ka taxadirno in maskaxdeena ku ilaalino Allah subxaana watacaala ina siiyey si aqoonteena iyo waxbarashadeena marka aanay u saameynin oo ay nooga caawiso. Marka 4 arrimood oo muhiimta mar walba in maanka lagu hayo maskaxda lagu hayo maskaxdeena wanaagsan una si wanaagsan wax kasta aan baranayno akhriyano iyo wax kasta aan baranayno doonayno. Ta koobaad waa jimicsiga weeyaan. jimicsigaas waxaan ka wadnaa 2 jimicsiba weeyaan. mid waxa weeyaan qofku inuu fadhiga ka kaco hadduu mar walba gaari wado mar walba shaqo ku jiro mar walba guriga joogo maskaxiisu waxa u baahan tahay markaa inay dhaqaaqdo qofku dhaqaaqo exercise sameeyo jimicsigaas inta doona ha leeyahay waxa ugu yar waa inaad hubisid maalin kasta intaad soconaysid ama guriga wax yar aad ku socon karaysaad ku exercise karaysaa ku dhex yaalaan amba aad soo lugaysid oo aad jimicsi samaysid. Jimicsiga labaadna waa jimicsiga maskaxda oo akhriskan aad isbarayso iyo activity-gaad samaynaysa maskaxda u fiican iyo waxyaabaad xifdinayso iyo waxa ay dhiganayno iyo casharadaad qaadanaysaad mar walba aqoontaada cusboonaysiinaysaad mar walba arday aad tahay noloshaada waxa weeyaan waa exercise kala maskaxda u baahan tahay. Marka waa qodobka koowaad ee awoodda maskaxda Allah subxaana watacaala si aan ku sii ilaalinayno. Qodobka labaad waxa weeyaan positivity-ga qofku inuu ahaado qof ijaabiya gaar ahaan markay tahay waxbarashada oo hadii jeer macal focuskaaga waxyaabaha saameynaya waxa ka mid ah in diirasarkaaga fiicnaado waxa ka mid ah negativity-ga qaabkaad iskula hadlayso dadka kugu xeeran aad ku xidhan tahay iyo waxyaabaha daawanayso social media faraha badan aad ku jirto siyaasadda faraha badan aad daawanayso iyo dadka aad hadii jeer wax leeyahay markaad heshid group iyo dad aad wax wada akhrisataan iyo book club iyo asxaab iyo saaxiib gaara iyo ashkhaas gaar ah isdhiirigelisaan isla markaana aad iska xakamayso waxaad daawanaysid iyo cidaad raacayso iyo gudahaaga waxaad iskula hadlaysana aad u fiirfiirsatid awareness badan u yeelatid kuwa negative-ka iyo kuwa positive-ka iyo maskaxda positive noqonaysa energy-gaagina ma saameynayso dabeetana wixii aad baranaysa iyo aqoontaadii waad ka faa'iidaysan karaysaa. laakiin maskaxdii jir daalan waayo qofka bini'aadamka waxa la yidhahdaa 70 ku dhawaad fikradood maalintii soo saara 60 ilaa 70 fikradood 70 fikradood fikra ka soo baxaya maskaxdiisa inta ugu badan 70% waa negative markoodii horeba negative-ka haddaan aware u yeelanad lahayn marka waa ku hagaasinaya marka waa inaad isweydiisa markaad u fiirfiirsatid waxaad ku fikiraysaad iskula hadlaysid dabeetana aad xoog u qaadid kor u qaadid markaa positive iyo ijaabiga. ama qodobka saddexaad waa hurdada inaad hubisid aad u hubisid intaad seexatid gaar ahaan weliba qofka waxbarasho cusub ku dhex jira ee doonaya takhasus amba wax xifdinaya amba quraan baranaya amba doonaya inuu imika wax xeer ka gaaro laga yaabaa haddaad takhasuskaaga muddo hore soo baratay oo imika hurdada waxay kuu diidaya ay tahay shaqo cibaado iyo dadaad wax barayso waa caadi markaa inay hurdadaada yaraato dad badan bay hurdadooda markaa 4 iyo 5 kusoo koobnaan karaysaa. laakiin marka aad arday tahay aad doonayso inaad wax baratid wax fahantid waxaad u baahan tahay ugu yaraan 7 ilaa 8 saacadood baa lagu soo koobaa 7 ilaa 8 saacadood dabcan hurdada dadka qaarna way dheertay qaarna way yartay laga yaabaa in 6 saacadood kugu filantay laakiin hurdadaada waxa kala saameynaya waxa weeyaan goortaad seexanaysa iyo goortaad kacaysa inay xadidnaato oo aanaad noqon qof habeenba ma xilli seexda habeenba xilli toosa laakiin isku dayda midda kale waa inaad habeenkii seexataan maalintii seexan wajacalna ilaahay wuxuu leeyahay habeenkii waxaan idinka dhignaa libaas maalintiina macaash waan idinka dhignaa inaad shaqaysaan marka inaan la isweydaarin oo aan maalintiina la seexan hurdada habeenkii ay ka caafimaad badanta maskax ahaan. marka hurdadu markaad seexato faa'iidooyinka leedahay ka mid maskaxda qashin baa ka nadiifma qashinkaasi waa waxa marka hurdada kugu yartay kuu diidaya focuska iyo inaad wax fahantid waxa kuu diidaya weeyaan. arrinta labaadna waxa weeyaan habeenkii oo kale waxyaabaha study garayso amba akhrido ee kugu adag ee markaad sii seexanaysa adigoo loloon weli hurdo badan ku qaban intaanad loloonin aad seexato kadibna aad ku seexatid intaad kaartaada akhrido aad seexato
maskaxda qayb baa jirta aan seexan subconscious mindka qaybtaasi marka waxay process garaynaysaa afkaartii iyo wixii aad akhriyaysid iyo wixii aad rabtay inaad fahanto dabeetana subaxaaga waxaa laga yaabaa inaad intii hore inkaba marka waa xilliyada ugu fiicana wax la akhriya waa marka lasoo tooso ee maskaxda fresh tahay inay daalaneen iyo marka la seexanayo sababta marka la seexanayana maskaxdii baa marka ku shaqaynaysa adigoo hurdaa qayb baa soo jeeda markaad soo toostina fresh baate waa labada xilliya ugu fiican ee tahay inaad block time ka yeelatid aad wax akhridid aad wax study garaysid qodobka afraad ee ugu dambeeyana waxa weeye cuntadaad cunayso waxaa jira cuntooyin u gaara maskaxda cuntooyin maskaxda u gaaraa jira dabcan dad khas ku leh baa jira arrimaha cuntada iyo dhakhtarada oo la sii kaasho karasaan laakiin kuwa ugu muhiimsan waxa weeyaan maskaxdeena inaan ogaano 20% energy-ga qaata maskaxda yari 2% weeyaan yani weight-ka ay ka tahay jirkeena culayska intaa lagna way ka tahay haddana 20% energy qaata energy-ga intaa lag muxuu u baahan yahay marka waxyaabo u baahan yahay waxa kamid ah arrinta kale waxa weeyaan 70% inay biyo ka samaysantahay مثلا haddaad wax akhriyaysid oo aad maskaxdaadu dehydration ku dhaco in yara percentage intaa lag focuskaaga way saameynaysaa inta inaad hubiso markaa biyaha aad u baahan inaad cabto iyo in biyo ku ag yaalaanba dad wax akhriyaysid weliba fatty omega 3 mid loo yaqaano fattiskaas ayaa u baahan tahay cuntooyinka ku jirtana badana kalluunka kamid ama malayga kamid ah fishka gaar ahaan salamonka iyo sardiniska kamid ah kuwa laga helaya aadka ugu badan tahay marka oxygen iyadana waxa weeyaan inta ugu badan maskaxda iyada qaata xubnaha jirka oo dhan marka la eego marka oxygen-ta iyo fatkaas ee u baahan tahay si gaar ah cuntooyin ku jirto oxygen-taas oo kale marka maxaan ka helaynaa matalan exercise-ka iyo jimicsigu wuxuu ku siinayaa wadnahaagu inuu aad u shaqeeyo aad markuu u shaqeeyo marka oxygen carbon dioxide badan baad saaraysa oxygen badan baad qaadanaysaa marka qaarkoodna keligaaba exercise breathing exercise samayn karaya hadii jir waxaad aragtay iyadoo laleeyahay neef qaato neef soo daaya إذا قفكم مركو ناف قادني وجدده وين كل شيء مركا لقيتها مديتيشن كي حيابها كلا قفكم سمعيني مركا لقيتها وحويا إنسان كاجا هو مركا هراس سلو ويوسعته هو إذا كنت جسيه هو فريش حوجة هنا القادتي هو ده سيكس شيء ده حاجة تجسيه بدل مسكح دي أوباهن تنا أفكار كسر صارت مركا كربون سياق بدل الله قاتشرة لكن حتى هذا ستريس كل شيء تعولا يسوي فوكس كايرة بريك قادن يسوي 5 minute break وكلات قادن يسوي oo ilaa 3 jeer practice karsanay qaadashadaas maskaxdaadu waxa dareemaysaa caadi baad u dareemaysaa refreshment inaan qaadanayso activity qaas because oxygen-ta ay qaadanayso way gubaysaa energy-gina way ka helaysaa runtii marka cuntooyinka ay ka mid tahay marka dark chocolate ka kala iyo nuts ka kala lowska qaarkii iyo eggs-ka beedka khudaarta waliba vitamin C iyo vitamin K ay ku jirto oo si fiican omega 3 ka kala salaskeeda dhista iyo kalluunkaas ama malayga aan nidhi salamonka uu kamid yahay inaan caruurteena iyo guryaheena aan barno oo caado uga dhigno in xilliyo kamid ah marka cuntooyinkeena ay kamid noqdaan si caruurteena maskaxdoodana ay u caawiso inaguna nafteena barana marka oo waxyaabaha inoo fiican marka maskaxdeena marka caafimaad hayna wanaagsan